السلام عليكم كلنتي ابون داوديال idil ahaantiin ba waxaad ku soo dhawaataan qaybtii 26aad ee taxanaheennii ayaan daray shakadan waxa qoray Dr. Abdullaahi Sheekh Xuseen hanti wadaag waxaanaynu soo galnay guntii iyo gabagabadii dhiganaheena ayaan daran qaybtan waxay ku bilaabmaysaa sidan asli waxay isu diyaarinaysay inay xirooto iyadoo walaalkeed Cali Amuur la ballamaysana waxa ay ku tiri walaalayeen sanduuqii aadajuuma kala timid aan la foole la aadee aad badan nasiib badan tahay runtiina waxa tahay shahiidad waayo waagi dhibaatada ku haleeshay waxaan islahaa tacliinta way iskaga haraysaa hase yeeshee waad mintiday miraheedina waadiga guranaya oo maanta jaamicad u socda Amuur oo hadalkii wada ayaa arini maskaxdiisa ku soo dhacday markaas yiri canab waa isku dirirteen baan maqlay waxa arinta ka jira walaal waxa la yiri dantiimooge maradoog ah horteed dhamaa saaxiibaday canab aad baan uga xumahay silica ay ku jirto si kasta ula hadlay hase yeeshee waanadeedii waxay noqotay hal bacaad lagu lisay waa ilaahay mahadiis haddii canab aad kala hadheen meeqa jeer ayaan ku yiri ka hadh gabadhii ku fidnaysay caliyow anigu canab uguma ciil qabo maxay intay ku sirtay ragga kugu geysay waayo qof isaguba isdhowri waayay cid kale ma dhowri karto waxaase dhibaatada keenay iyadoo wali haysa oo laga kari la yahay dariiqii ay ku hoogtay arinta ayaana keentay inaan kala tagno asli inkastoo oo jaamicadda lagu qoray haddana hawshii xafiiska way sii waday waxay doonaysay inay hawsha isku wado galab iyo subaxba si muddada yar ee uga harsan galitaanka jaamicadda ay hawsha isaga dhamaystirto goor barqa iyadoo shaqadii ku dhex jirta ayaa waxa u soo galay Caasha iyo Farxiya oo ay isku meel ka shaqeeyaan waxayna ugu hambalyeeyeen fursadda waxbarasho ee heshay iyana waxay labadii gabdhood u dirtay quraac iyagoo xafiiskeedii fadhiya markii asli ay ka soo baxeen waxay labadii gabdhood isugu yimaadeen xafiiskii Caasha Agmadhiga waxaana iyada iyo Farxiya dhex maray hadalladan alla Farxiya bal xaq darrada imise sano ayaan shaqaynaynay markaasaa asli oo shalay timid jaamicad lagu qoray walaal waxa la yiri gaalka dil kartiisana si asli way shaqaysatay waxayna buuxisay shuruudihii jaamicadda lagu gali lahaa naahay sheegin asli taariikhdeeda waa la yaqaanay jaamicadda wax kale kuma yeelin ee madaxda bay muraadkoodii u fulisay oo raali gelisay alla caashay dambiga iska daa afku yuusan ku go'ine ta kale asli barasha kuugu dhiman madaxda la dhaqankooda haddii wax lagu helaayona cid kaaga dhawi ma jirto inkastoo labada gabdhood midi ka masaysanayd kartida asli iyo jaamicadda lagu qoray misana waxay guddoonsadeen in dadaalka asli oo kale muujiyaan si sanooyinka dambe aanay jaamicaddu u seegin habeennimadii waxaa ballan lahaa agaan iyo asli markii ay isu yimaadeenna doodan ayaa dhex martay asli war cusub ayaa inagu soo kordhay waynagii isku waafaqnay inaan jaamicadda gasho arrintii sidaan isku ogeyn waxaan u sheegay waalidkay waana ay ka boodeen sidaa darteed asli waxaan ka codsanayaa si arrinteenu aanay u murgin in aad jaamicadda iska dhaaftid oo shaqaysatid degdegna aan u aqalgalno asli hadalladii agaan oo aanay filayn aad bay uga xumaatay waxayna tiri agaanow laba wajiilanimadu ma fiicna shalay ayay ahayd markii aad iigu hambaliyeynaysay jaamicadda aan helay maantana ka hadh baad leedahay cid kale iska daayay haddii Cali Amuur iyo Faadumo oo waxa ifka ku nool aan ugu jecelahay ay yiraahdaan tacliintaada ka hadh baanan ka yeelay sidaa darteed waan diiday mana ogoli fikradaad ii soo jeedisay fursadan isoo martayna ma jirto cid iga baajin karta anigu laba wajiile ma ihi runtiina ma bedelin fikradii aan hore u qabay haddii ay tayda ahaan lahaydna muranba ma yimaadeen laakiin waad garanaysaa arrintu meesha ay ka socoto iyo in waalidkay aragti tayda ka duwan ay qabaan isla markaana doonayaan gar iyo gardarraba in iyaga ra'yigooda la raaco waa waajib inaad labadii ku dhalay ka dambaysid fikradooduna waa caddahay oo waa inaad iga hadhid haddii aan jaamacadda galo agaan iyo asli waxay murmaanba waxay arrini ka fuursan weyday oo talo ku dhammaatay in ay kala hadhaan oo barashadoodii hore ee walaaltinimada oo kali ah ay u socoto agaan markii uu gurigoodii ku soo laabtay wuxuu isku gohaadinayay waa nasiib darro oo ma asli baan hawlyaridaas kaga hadhay waxaas oo dhanna waalidkay ayaa iigu kallifay waxaas dunida ugu nasiib badan ninka asli
ay ooridiisa noqoto. markii agaan ka tagayna asli waxay aaday gurigii Faadumo waxaana ilinka kaga hor yimid wiilkeedii Maxamed Yare oo ay hore u sii geysay soo u sii barto oo uusan hadhow uga qaldamin oo funaanad cusub gashan oo faraxsan markaas yiri hooyo macaan shaatigan aabe cadaawe ayaa ii gaday soo shaxshax ma aha iska daa Maxamed Yarow funaanad baa kugu dhacday. asli markii ay guriga timid waxay Faadumo u sheegtay wixii iyada iyo agaan ka dhexdhacay iyo in ay kala tageen. bagad agaan uga xadhay waayo ma jecli ragga tiltiixsan oo laga roon yahay. way dhamaatay bishii ka harsanayd gelitaankii jaamacadda raadiyaha ayaana looga yeeray ardaydii cusbeed in ay si dhaqso ah u soo xaroodaan. asli galabnimadii jimcaha bay xamar ka soo ambabaxday waxaana ilaa kuliyadda u soo raacay walaalkeed Cali Amuur. inkastoo markay soo baxday wiilkeedii laga reebi kari waayay waxayna kula ballantay warkan hooyo Maxamed Yare Amuur maxaa ka maqan jimcaha dambe ayaan ku imanayaa. hooyo macaan ma rabo waan ku raacayaa war heede meel la isu raaco ma socdo orod hooyo Faadumo u tag. asli waxay gashay kuliyadii la foole iyadoo moraalkeedu heer sare yahay maskaxdeeduna waxbarashada u nugushahay. waxay guriga la degtay laba gabdhood oo markaas ay isugu horeysay oo la kala yiraahdo Suleekha iyo Xabiibo. alla ilahe imika ayaan ka nasanayaa rag iyo buuqis saaxiibna waxaan la noqonayaa qalinka iyo buuga ay talo ku gabagabaysay. Cali Amuur fiidnimadii ayuu guriga ku soo noqday wuxuuna u yimid hooyadiis iyo aabihiis oo daarada guriga ku caweynaya. bishaaro marqura ayay wada yiraahdeen bishaaro khayr. Cali Amuur ayaa u sheegay in asli ku xirootay kuliyadda waxbarashada ee la foole oo jaama oo u maleynayay in wiilkiisu wax kale u sheegayo ayaa intuu madaxa ruuxay yiri waan farxay waxaan mooday inaad bishaaro khayr qabtaa noo sheegaysid dawaayelkadeed haddii ay jaamacad heshay. Ambaro oo iyadoo arrintaas aad ugu faraxday ayaa tiri oo jaamaco maxad waayelkadeed u leedahay asli haddii ay jaamacad ka soo baxdo soo sumcad fiican nooma aha. Ambaro meeqa jeer ayaa ku yiri iga daa asli iyo sheekadeeda dooni maaye. markii uu jaamac baxay Cali Amuur iyo hooyadiis doodan baa dhex martay. aabaha isfiilato ayuu qabaa markuu asli maqlana waa ku soo kacda. hooyadan ha u gelin ugu dambeynta isaga aabe xaqiiqada u hoggaansamayeen. waan ka xumahay in aanoo nool oo aan god la dhigin ay asli wiilkeedii cid kale u geysato. maantana haddii uu jaamac aanan ka cabsanayn anaa wiilka u hayn lahaa inta jaamacadda ay ka soo baxayso. hooyo asli wiilkeeda ha ka warwarin wuxuu ku jiraa gacanta Faadumo sidii aad adigu u xanaanayn lahayd si la mid ah baana loo daryeelayaa. Xarbi markuu galay kuliyadda beeraha xiriirkii salaanta iyo booqashada ahaa ee uu asli la lahaa marnaba ma goyn. ugu yaraan labadii toddobaadba mar buu u iman jiray intii aanay jaamacadda gelin. hase yeeshee sheeka caadi ah iyo salaan wax dhaafsiisan kama ay wada hadli jireen. Xarbi uu ogaa xaqiiqada iyo in isaga iyo asli kala tagooda ay sababo keeneen intaas sababahaasi taagan yihiinna aanay asli ka yeelayn in ay wada socdaan. Xarbi jacaylka uu asli u qabay wuxuu gaaray heer ba'an dhammaan ardaydii ay isku fasalka ahaayeen iyo kuwii kuliyadda beeraha oo dhanina way garteen in dhibaatadiisu la xiriirto asli. waayo musawirkeeda oo uu soo weyneeyay ayaa u saarnaa sariirta uu ku seexdo korkeeda. markuu uu maqlay in ay asli ku soo xirootay kuliyadda la foole oo agtiisa ah aad buu ugu farxay. wuxuuna ka shaleeyay markii hadda ka horeysay ee inta kuliyadda beeraha lagu qoray uu ka bedeshay. fiicnaan lahayda in la ii soo waxyoodo markii aan bedelka warsanayay aan meeshaydii hore iska joogay. Xarbi markii uu ka war helayba wuxuu asli ugu yimid kuliyadda la foole si uu ugu hambaliyeeyo arrintaas. duruustii si fiican uma bilaabmin sidaa darteed Xarbi wuxuu ka faa'iideystay fursaddaas. maalintii oo dhan buuna asli la joogay. Xarbi waqtigii qadada ayuu isagoo faraxsan kuliyaddii beeraha dib ugu soo noqday. markii uu sariirtiisa bogga dhigayna wuxuu galay fakar ku saabsan sidii isaga iyo asli dib dambe isugu soo noqon lahaayeen. ugu dambaystiina waxaa talo ugu soo dhammaatay inuu u bedesho kuliyadda waxbarashada ee la foole. wuxuuna sidaa u yeelayay laba sababood oo kala ah inuu asli u soo dhawaado iyo in ay isku mar kuliyadda ka qalin jabiyaan oo uusan ka dambayn. Xarbi wuxuu aad uga warwar qabay in bedelka loo diido waayo hadda koor ayaa iyadoo aan bedelba loo ogolayn ayuu wuxuu kalifay in kuliyadda beeraha loo soo wareejiyo. wuxuuna iskula hadlayay bal maxaan marmarsiyo ka dhigan
haddii la i weydiiyo sababta aan la foole mar labaad ugu soo noqonayo alla ilahe waa in aan guddoomiyaha runta u sheegaa misana Xarbi wuxuu gartay in uusan xaqiiqada bedelaadiisa sheegin isagoo u arkayay arrin aan laga garawsanayn sidaa darteed wuxuu ku fakeray sababo kale oo macquul noqon kara Xarbi arji ayuu u soo qortay guddoomiyaha jaamacadda ummadda isagoo weydiisanaya bedel maalinkii dambana waa uu yimid markii uu xafiiskii fariistay oo arrintii u sheegayna guddoomiyihii wuxuu gartay Xarbi wuxuuna ku yiri Charles soo ma tihid inankii nagu wareeriyay in kulliyadda la foole laga bedelo arjigaagii waan akhristay laakiin kuma aanan garanayn waayo arjiga kuma aad soo qorin in hadda ka hor kulliyadaas lagu qoray waxaanse imika la yaabanahay sababta kugu kaliftay bedelaadan kale haddii aad la foole doonaysid maxaad uga bedelatay oo u joogi weyday markii aanu kugu qornay midda kale ma og tahay inuu noo degsan yahay qorshe guud oo kulliyad waliba aanu ugu talo galnay cadad u go'an oo arday ah haddii nin walba meesha uu doono u bedesho waxa halkaas ku dhaawacmaya qorshihii sidaa darteed arjigaaga ma ogolaan karno midda kale adiga hal mar baan mudnaan gaar ahaaneed ku siinay oo ku bedelnay iminka waxaa horteeda yaala in ka badan 50 arji oo bedel lagu warsanayo gidiina waa ka xaqleeyay taale guddoomiye waad ku mahadsan tahay bedelidii markii hore aad samaysay imkana waxaan ka rajaynayaa inaad codsigayga iga ogolaatid sida arjigaba aad ku aragtay markii hore ma fahansaneen qiimaha kulliyadda la foole hase yeeshee markii saaxiibo badan oo aan leeyahay ii ammaaneen baan jeclaystay kulliyaddaas in aan galo Xarbi runta uma sheegin guddoomiyaha jaamacadda ummadda waayo bedelkiisu wuxuu ku saabsanaa amuuro ku lug leh jacaylka uu qabo asli guddoomiyihii jaamacaddu waa uu diiday ugu horreyntii Xarbi bedelidii uu soo codsaday sababtoo ahayd hadda ka hor ayuu Xarbi bedeshay Xarbi xamar kama tegin wuxuuna bilaabay inuu subax walba ku soo kallaho xafiiska guddoomiyaha isagoo markasta soo qoranaya arji hor leh guddoomiyihii jaamacaddu waa arkay in Xarbi xaalkiisu culus yahay ugu dambeyntiina bedelidii buu u dhameeyay Xarbi wuxuu ku xarooday kulliyadii waxbarashada ee la foole markii uu halka tagayna wuxuu la kulmay asli oo uu sheegay inuu soo bedeshay waxaan Xarbi iyo asli dhex maray hadalladan Xarbiyow maxaa kulliyadii beeraha ka soo waday suuragal ma aha anoo wadnahayga la foolayaa in jirkayga intiisa kale kulliyadda beeraha sii joogto asli waa fahantay in Xarbi u soo bedeshay sabab jacayl hase yeeshee uma muuqan sabab iyada iyo Xarbi kulmin karta Xarbi go'aan wuxuu ku gaaray inuu asli la hadlo una muujiyo jacaylka uu qabo goorfiid ah markii la soo casheeyay kadib ayaa Xarbi u yeeray asli waxayna fadhiisteen meel luuq ah Xarbi wuxuu u sheegay asli inuu aad iyo aad u jecel yahay la'aanteedna aanay noloshu wax qiimo ugu fadhiyin wuxuuna ka dalbaday in dib loo soo nooleeyo xiriirkii labadooda ka dhaxayn jiray asli hore ayay ula socotay oo ay u soo gaadhay in Xarbi uu aad u jecel yahay darteedna cilaamato u furay hase yeeshee inta sababtii hore labadooda u kala kaxaysay ay taagan tahay asli uma muuqan inay suuragal tahay inay isku noqon karaan waxaana iyada iyo Xarbi dhex maray dood dheer Xarbi anigu kuma diidani oo waad og tahay waalidkaaba ii ka diiday imikana haddii waalidkaa ii ka ogol yahay waxba kama qabo Xarbi wuxuu u sheegay asli in waalidkiis mowqifkii hore ay joogeen imika ka soo dabceen una rajo weyn ka qabo in wixii isagu uu doonayo ay u ogolaadaan duruustii kulliyaddu si rasmi ah bay u bilaabantay Xarbi wuxuu fadhiistay kursiga asli ka dambeeya indhiisna waxay intaa u jaleeceen oo eegayeen dhaqdhaqaaqa asli kulliyadii la foole waa laga ogaaday in Xarbi asli jecel yahay iyo taariikhdoodiiba inkastoo aanay arrin isla meel dhigin asli iyo Xarbi wada jir bay duruusta u akhrisan jireen Xarbi dhowr jeer ayuu aabihiis jirta dhagax ka codsaday in wixii hore iska iloobo oo uu ogolaado inuu asli guursado hase yeeshee jirta dhagax oo madax adayg u dhashay waxba waa la soo marin waayay iyadoo xaalku halka ka taagan yahay waxaa dalka Talyaaniga ka yimid Dr. Arte oo takhasus 3 sano ah ugu maqnaa Arte wuxuu ugu yaraa ilmaha Ciise Baarqab waana ugu aqoon badnaa aad baana ra'yigiisa loo tixgelin jiray Xarbi warqad buu hore ugu diray adeerkiis Arte isagoo la socodsiiyay xaalkiisa markuu yimidna wuxuu u sheegay arrin meesha ay marayso Dr. Arte wuxuu isugu yeeray aabihiis Ciise Baarqab iyo walaalkiis jirta dhagax wuxuuna yiri
waan ka xumahay inaad wiilkiina Xarbi dilku xukunteen isma ogidin laakiin magtii Xarbi baad qabtaan wiilkii aan ogaa ee caqliga badnaa inaan kayfiyada dheer lahaa waxaad ka soo saarteen naanaab saxsacan aabe iyo walaal eega qarnigan joogno waa kii 20aad waa la soo dhaafay xilligii wiilasha iyo gabdhaha waxaanay rabin lagu jujoobi jiray idinka ayaa mas'uul ka ah haddii Xarbi idin caasiyo oo caasi waalidiin uu noqdo aabe iyo walaal qofka bini aadamka ahi wuxuu xaq u leeyahay inuu isagu doorto qofkii uu mustaqbalkiisa la noolaan lahaa idinku talo iyo tusaale baad ku leedihiin midda kale miyaydan ka naxayn jahwareerka wiilkiina ku dhacay waa ka hadba kulliyad u bedelanaya waa maxay dambiga uu galabsaday oo aad Xarbi ka gudanaysaan maxaad ugu diidaysaan gabadha uu rabo in uu guursado waxaad Xarbi ku tirqideen ilaa mato waanu furay yaa ka mas'uul ah qoyska Soomaaliyeed ee dumay runtii waxaad ka dhigan tihiin ninkii intuu gudinta qaatay bilaabay inuu salka ka jaro laantii geedka ku tiil ee uu dul saarnaa oo garan waayay in marka ay goodo nololi ugu dambayso haatan iyo dan aaba iyo walaal Xarbi ma mudnayn in sidaa loo galo waxaan ku talinayaa in Xarbi aad u ogolaataan in uu aayihiisa ka tashado oo gabadha uu jecel yahay uu guursado hadalladii Dr. Arte aad bay u garowsadeen Ciise Barqab iyo Jirda Dhaga waxayna u sheegeen in aanay wax biyo islahayn ee ujeedada ay Xarbi ugu diideen asli ay ahayd in isaga mustaqbalkiisa loo eexanayay ugu dambeyntiina waxa la isku waafaqay in Xarbi loo ogolaado asli inuu guursado isla markaana asli loo tago oo laga xal mariyo wixii loo geystay oo aflagaada ahaa Xarbi markii uu maqlay warkaas aad buu ugu farxay wuxuuna u sheegay asli waxaana isaga iyo asli dhex maray hadalladan Xarbi oo sidaan horeba ballanta kaaga qaaday diyaar baan ku ahay aad baan ugu faraxsanahay in ugu dambeyntii waalidka gar qaataan adeerka Cartanna waa mahadsan yahay asli ilaa maalintii aan kala tagi jirnay ilaa maantadan aan joogno ka hor nin degan ma ahayn maantana haddii aan go'o geerideedu waa xalaan asli waxay aad u sii ixtiraaftay Xarbi markii gadaashiis rag badan oo dabciye kala gedisan leh ay baratay Xarbi wuxuu dhowr jeer gurigiisa ku casuumay asli si iyada iyo waalidkiis si fiican isugu bartaan salaado iyo Jirda Dhagax aad bay ugu bogeen asli waxayna xaqiiqsadeen in ay tahay gabadh wanaag badan salaado oo maalin jimcaha wiilkeeda Xarbi guriga kula sheekaysanaysa ayaa waxay tiri Xarbi oo asli waa qof fariid ah weligeena ima soo marin gabadh dabcigeeda oo kala leh asli iyo Xarbi waxay isku waafaqeen inay durbadiiba hore ka aqal galaan markay jaamacaddu u dhamaato hase yeeshee mushkiladu waxay ahayd asli oo saadaalinaysay in arooskeeda ay ka soo qayb galaan hooyadeed iyo aabaheed asli iyo Xarbi caan bay ka noqdeen kulliyadii shaqo kasta oo la qabanayo iyaga ayaa hormuud u ahaa tacliintana wada jir bay ugu sabcin jireen intaasi kadib maxaa dhacay la socod daawade qaybteena oo xigta qaybteena maanta shaqadana waxaa qoray Dr.